wasaaradda guud ahaan batroolka iyo macdanta waxay dowladda ummadda Soomaaliyeed wakiil uga tahay inay uga shaqeyso oo ilaaliso khayraadka batroolka iyo gaaska iyo macdanta Soomaaliyeed mandate-kaas ay haysato darteed ayaan waxaan mararka ku fakirnaa inaan adduunka ku soo jeedino in resource-ga Soomaaliyeed uu diyaar u yahay in maalgashan karo waxaan sidaad su'aashaad weydiisay dib hoos ugu dhaco shirka London oo ka dhici doona February bilowgeeda hadii Ilaahay yiraahdo waxaa abaabulay oo qayb ka ah oo wasaaradda batroolka iyo macdanta oo aniga aan hogaaminayo iyo shirkad loo yaqaan Spectrum oo dowladda Soomaaliyeed u qaabilsan hore ugu sameysay baaritaankii badda qayb kamid ah Soomaaliya isla markaana macluumaadka Soomaaliya gacanta ku haysa waxaa shirkaas lagu soo bandhigi doonaa oo kaliya macluumaadka iyo daatada Soomaaliyeed laakiin sida wararka suuqa la geliyo oo ah in la xaraashiyo shidaal Soomaaliyeed sax ma aha waan horaan uga soo saarnay wasaaradda ahaan statement lagu cadeynayo in xaraash balogyo Soomaaliyeed aysan jirin marka aan daatadan soo bandhigno kadib waxa imaan karto interest inay muujiyaan muxuu ahaa shirkadihii taasoo qaadan doonto ugu yaraan aakhirka sanadkan in isla gaaro in hadiiba ay noo dhamaato in isla gaaro in la bixiyo qandaraas bixinta marka wasiir konton baloogo la hadalhayo iyo dhulku kacaya 123,000 kilomitir square doodaha noocaas oo aad la hadalay waxa leedahay shirka London loogama hadlay meesha laga keenay konton balog aniga garan maayo runtii balogyada Soomaaliyeed waa calaamaysan yihiin badda inta la baaray iyo inta aan baarneenba laakiin numberka aad leedahay konton balog oo wasiirkii wasaaradda ma ogi haddaysan jirin suuqgeyn weyn oo meelaha qaar ah shirkadaha aadan dhahaynina halkan manaafacaadkan haynaa ujeedka shirku muxuu noqon doonaa ujeedka shirka waan kuu sheegay in Soomaaliya lagu soo jeediyo maalgashidaal caalami ah si ay u maalgashan doon mustaqbalka u maalgashtaan Soomaaliya qofna maalgashi ma sameeynayo haduusan arkin wax meeshaas uu ka faa'iidi karo wuxuu ka faa'iidi karo waan ka wada faa'iidi karnaa inaan horta isla aragno kadibna interest-gooda ay muujiyaan wada hadalno markaas kadib uu furmo uu soo dhawaana wadanka sanadka aakhirkiisa laga wada hadlo wixii shirkadan hawsha idin qabatay oo dowladda Soomaaliya shaqeynaysay meelaha calaamaday soo rajada ka leedihiin waxa meel kasta oo ay baartay anaga rajaan ka leenahay dhulka Soomaaliyeed waa isku mid inta la baaray waa meesha laga soo bilow Kismaayo ilaa Hobyo baaran badda waxaa jira qawaaniin dalku leeyahay oo qabanay wasaaradda tusaale ahaan shuruucdii hay'adda batroolka ee labada aqal inay meel mariyaan ahayd way ku hortaala dhisidda hay'adda batroolka weli ma suura gelin wasaaradda waxaad moodaa inay suuqgeyn iyo ka hadlayso shirarka caalami marka shuruucda hay'addan xayndaab leeyahay xagee bay marayaan macnaheeda ma aha shuruuca dhiman gacmaha la laabto macnaheeda ma aha anaga waxaan ka hadlaynaa in labada shaqo isla socdaan sharciyeedana sharci aan manihin sharci waan haysanaa hay'adihiina way dhismi doonaan laakiin hadda waxaan u soconaa waa presentation lagu sameeyo daatada Soomaaliya rajada ah in sanadka dabaaqadiisa waa ku alalisay inaad rajo leedihiin in dadka damacgeli kara hay'aduhu waa run laakiin haddaysan hay'adihii baarlamaankaasi ku meel marsiin see suuq geynaysa hay'adaha ma dhisna cidtiir ma leh sharci batrool yaalo oo 2008 la meel mariyay baarlamaanka meel mariyay sharciga hadda aan ku sameeyay dib u eegis baarlamaanku yaala waa sharciga 2017 kan baarlamaanka geynay qodobada laga amend gareeyo ama lagu dib u eegis lagu sameeyna waa qodobo saameynaya federalismka wadanka oo kaliya macnaheedu haddii sharcigaas uu baarlamaanka yaalo kii ka horeeya valid waslaha inaan ku xasuusiyo mar kale oo arabka ku adkeeyo shirka London February horaanteeda wax heshiisyo ah iyo wax iba ma jiri doonaan wax heshiisa ama wax contract oo la sameyn doono shirka London ka dhici doono ma jiro